Oohinta kooliga waa markay carruurtu joogteeyaan oohin si daranna u ooyaan waqti dheer. Carruurta qaba kooliga guud ahaan caafimaadkooda waa u fiican yahay, laakiin oohinta badan waxay waalidka u keeni kartaa niyad jab, waayo waa oohin aan ku salaysnayn baahi gaar ah. Waxaa dhib noqonaysa inaad hesho waxaad ilmahan yari ku aamusin lahayd. Afka qalaad waxaa oohintani lagu yiraahdaa colic baby. Waxay yaraataa ilmaha markay da'doodu gaadho inta u dhaxaysa 3 ilaa 4 bil kadib. Carruurta inay ooyaan waa wax iska caadi ah, waayo waa luqadda keliya ay ku hadlaan markay dareemaan baahi u gaar ah. Laakiin oohinta kooliga waa ay ka duwan tahay tan caadiga ah ee carruurtu ooyaan. Waxaa lagu aqoonsan karaa inay oohinta bilaabato xilliga fiidka, inay maalintii ooyaan 3 saac mise in ka badan. Haddii si kale loo dhigo, asbuucii 3 jeer. Inuu cadsaado wejiga, inay adkaadaan lugaha iyo gacmaha, inay isu soo ururaan faraha, dhabarka oo noqda sida qaansada. Oohinta badan waxaa carruurta ku keeni kara koolig mise xanuuno kale. Sidaa daraaddeed, haddii aad carruurtaada ku aragto oohin badan, fadlan la xiriir dhakhtarkaaga mise dhakhtarka kuugu dhow sidaad ugu hesho talooyinka iyo dawooyinka ku habboon. Aqoon buuxda lagama haysto wax si dhab ah u keena kooliga. Waxaa jira waxyaabo fudaydin kara, sida haddii habdhiska dheefshiidka u dhiman yahay koriinkii loogu talagalay, haddii ilmaha xasaasiyad uu ku leeyahay cunooyinka qaar, haddii ilmaha jaqsiinta mise nuujinta lagu badiyo mise lagu yareeyo. Waxaa jira xeelado kala duwan lagu dejin karo carruurta leh oohinta kooliga. Xeeladahani waxaa macquul ah in ay qaar ku shaqayn waayaan, halka qaar kalena ay kuu suuragelin karaan inaad yarayso kooliga. Waxaa ka mid ah inaad ugu qubayso biyo diirimaad leh, inaad ku maaweeliso socsocod, inaad si khafiifa mise jilicsan ugu xoqdo caloosha mise dhabarka, inaad u beddesho jawiga, sida inaad ilmaha keento meel leh jawi cusub. Daryeelidda carruurta leh oohinta kooliga waxay waalidka kala kulmi karaan daal iyo cadaadis. Sidaa daraaddeed, waalidka, gaar ahaan hooyada, waxaa la gudboon inay nafsadeeda u oggolaato nafis qaadasho, sida inaad ilmaha u dhiibto sayga, hooyo, aabe, walaal mise qof kaloo faamiliga ka mid ah. Inay hooyadu xusuusnaato mise la ogeysiiyo in ilmaha caadi noqonayaan da'da 3 mise 4 bil kadib. Inay hooyada dareenkeeda la wadaagto qof kale oo ay ku kalsoon tahay, sida hooyo, aabe mise walaal. Inay caafimaadkeeda ku dadaasho, sida qaadashada cunno fiican. In aysan isu arkin qof nasiib xun. Oohinta kooliga carruurta kuma keento xaalado caafimaad. Fadlan ha isku dayin inaad gilgisho mise ilmaha yari aad ku samayso ruxruxid adigoo oo isleh ku teji oohinta, waayo waxay carruurta ku keentaa inay waxyeelowdo maskaxda mise ay u dhintaanba. Xaaladda noocani waxaa afka qalaad lagu dhahaa shaking baby syndrome.